hadduu Allah raali ka noqdo taariikho, dhacdooyin iyo falanqaynta arrimaha bulshada. Haddii ay tahay marka ay kugu horeysay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid. Waxaan rabaa inaan maanta mawduuceeda kusoo qaato 6 qodob oo haddii aad maalin walba samayso aad guul ka gaarayso nolosha insha Allah. Qodobka koowaad, ku bilow maalintaada hawlaha kugu muhiimsan. U kala horeysii hawlahaaga sida ay isleedahay way u kala horeeyaan iyo sida ay u kala fudud yihiin. Hubka sirta ah ee dadka guuleysta waa wax ka qabashada hawlahooda ugu muhiimsan marka hore. Qodobka labaad, jadwal u samee maalintaada. Maalintaada iyo waxa aad qabanayso waa in ay ku cad yihiin. Dadka guuleysta waxay inta badan ku celceliyaan oo ay sheegaan in laga maarmaan ay tahay qofka in uu leeyahay routine ama jadwal. Si uu qofka u xaqiijiyo maalin walba hawlihiisa gaarka ah, istaraatiijiyadan maareynta waqtiga waxay ka caawinaysaa in aad ogaato halka aad u socoto, waxa aad qabanayso, iyo weliba in aad xaqiijiso hadafyadaada. Qodobka saddexaad, jooji fikirka xad-dhaafka ah. Hadda bilow oo qaado go'aan sax ah. Maalin walba wax baanu ka fikirnaa oo aanu leenahay beri ayaanu bilaabi doonaa. Hadaf aad rabto in aad gaarto ama hawl aad rabto in aad qabato. Hawsha ama hadafka waxay noqon kartaa mid waxbarasho ama mid shaqo. Laakiin halkii aad bilaabi lahayd hawsha iyo sidii aad u bilaabi lahayd ayuu dhibka ka jira. Su'aalo badan ayay maskaxdeenu isweydiisaa. Mar kalena maskaxdeenu ayaa inoo sheegta in ay ahayn waqtigii ku habboonaa oo hawshaasi ama waxbarashadaas aad bilaabi lahayd. Midda oo caqabad ku noqon karta mar walba nafteena in aan hawl bilaawno. Jooji fikirka badan. Qaado go'aan sax ah. Bilaaw hadda oo maskaxdaada wax walba oo maskaxdaada ka guuxaya si xilli hore aad hadafkaaga u xaqiijiso. Qodobka afraad, ku bilow subaxdaada waxyaabo yaryar oo nashaad ah. Habka aad u bilowdo maalintaada ayaa ah mid aad u muhiim ah. Jadwalka subaxdii ee si wanaagsan ku bilaabato wuxuu bixiyaa tusaale ku aadan sida ay noqonayso maalintaada oo idil, kana dhigi karta mid wax soo saar leh oo dhammaystiran. Dadka guuleysta waxay inta badan mudnaanta siiyaan hawl maalmeedkooda subaxnimo. Maadaama anagu aan ummad muslimiin nahay, waxaa gudboon subaxii in aan xilli hore toosno, salaada subax tukano, hurdada aan ku laabanin, qur'aan juz ama bogba Allah ka dhigi in aad akhriso. Haddii aad heli karto meel jimicsi, qasab ma ahan in aad jiimka tagto. Wax yar oo socod lug ah xitaa in aad samayn karto. Intaas ayaa ka dhigaysa in aad noqoto qof nashaad leh, firfircoon oo u diyaarsan in uu wajaho maalintiisa, kuna dhamaysto si wanaagsan oo ah sida uu rajaynayay. Markaadna qodobka shanaad aan isla fiirino, joogtaynta ama ku celcelinta. Haddii aad fiiriso dadka kuwooda horumarka gaaray nolosha, maaha kuwo hal mar in ay hawl bilaabeen kadibna sidaas ay ku guuleysteen. Caqabado iyo dhibaatooyin badan ayaa ka horeysa hadafka aad rabto in aad gaarto, oo u baahan adkaysi, go'aan iyo mid ugu muhiimsan oo ah joogtaynta ama ku celcelinta. Joogtaynta hawsha aad qabanayso ayaa ka dhigaysa in aad noqoto qof xaqiijin kara hadafka uu leeyahay. Ogowna mar walba shay ama hawl aad joogtayso oo aad ku celceliso in aad noqonaysa qof taf ama khabiir ku ah waxa uu qabanayo looguna yimaado. Qodobka lixaad ee ah midka ugu dambeeya uguna muhiimsan, ogow naftaada. In aad naftaada ka warqabto, si gaar ah caafimaadkaaga. In aad hurdo kugu filan seexato, cunto wanaagsan cunto oo aan ahayn cunto expire ah. Sidoo kale aad jadwal u samayso waqtiga nasashada ee xilliyada aad hawlaha qabanayso. Waa in uu jiraa nidaam u degsan naftaada oo hagaya noloshaada. Haddii aad habeen walbo xilli dambe seexanayso, salaadii subax kaa tagayso, ummadii qof walba hawlihiisa iyo danihiisa uu raacanayo, adigana aad xilli 4 saac ama 5 saac sariirta kasoo toosayso. Taasi ma aha mid mustaqbal ahaan ku wanaagsan. Caafimaadka cuntada aad cunayso waa waxa kaa dhigi kara jirkaaga in uu ahaado mid ifaya oo qurux badan, tamarna siinaya. Cuntadaada, hurdadaada, waqtiga aad hawlaha qabanayso, xilliga aad nasanayso waa inta ugu muhiimsan. Naftaada oo aad ogaataa ayaa ka muhiimsan wax walba.
Marka aad naftaada ogaata, markaas ayaad diyaar u tahay hawl walba in aad qaban karto. Intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.